wararka naga soo gaaraya degmada Buulabirte ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in galabta oo halkaas ka dhacay qarax aad u xooggan kaasoo lala eegtay buundada degmadaasi gabi ahaanna wuxuu burburiyay buundada degmada Buulabirte qarax oo ah mid aad u xooggan oo laga maqlay guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Buulabirte ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sawirro laga soo qaaday halka uu qaraxu ka dhacay ayaa waxa ay muujinayaan in buundada uu soo gaaray burbur aad u xooggan sidoo kale waxa hakad galay isku socodkii gaadiidka ee degmada Buulabirte gaar ahaan maray buundadaasi oo muhiim u ahayd isku socodka gawaarida ku kala goosha degmada Buulabirte iyo deegaanada hoos yimaada isla markiiba waxa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayagoon halkaasi baaritaano ka sameeyay waxaana dadkii halkaasi khasaaro uu ka soo gaaray loola cararay isbitaalka weyn ee magaalada Buulabirte qaraxa ayaa waxa la sheegay inuu ka dhashay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaasoo isku qarxiyay buundadii degmada Buulabirte oo muhiim u ahayd isku socodka gaadiidka ee degmada Buulabirte iyo deegaanada hoos yimaada iyo sidoo kaleba gobolka Hiiraan waxaana wali hakad ku jira isku socodkii gaadiidka oo xilligaani ma jiro wax gaadiid ah oo buundadaasi maraya maadaama buundadu ay kala go'day isla markaana qaraxu uu saameyn weyn ku yeeshay buundada